بسم الله sheeko cabsi leh oo ka soo korortay qabuuraha Langata ee magaalada Nairobi habeenkii markii la gaaro waxa soo baxaya dad aan la garanayn kuwaas oo qodaya qabuuraha meedkiina ka soo saaraya karfantii ay ka furfureen geedaha dushiisa ay kaaga muuqataa halka meelaha qaar laga helay madaxyo qalfoof ah hadda qabuuraha sida gaarka ah loo bartilmaameedsanayo ma kuwa cusub oo goordhow la aasaya mase waa kuwii sanado badan aasna ilaahay ha wada naxariistay halkaani dad ma kaaga aasan yihiin goorma kugu dambeysay oo aad soo booqato muuqaal xog badan oo aadan ogeyn ayaan se kaaga hayaa muuqaalka xiga halkan waxaa kaaga muuqata waa gabar Soomaaliyeed ahna hooyo single mother haysata 7 caruur ahna guurdoon muuqaalkan ay iska soo duubtay waxay albaabada u soo garaacday ragga guurdoonka waxayna tiri marna yaa lay dhayalsan waxaan ahay baaba fartuun hadaa i heshasa waa taajiraysa oo xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaad ka faramarujinaysaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud ala i xaal taajir isnaca ayaad noqonaysaa waxa muuqaalkaanse ka soo falceliyay in ka badan 2048 qofood falcelintooda ayaa ah mid maankaaga iyo maskaxdaada aysan qaadan karin muuqaalka xiga reer xamarku markaan oo kale waxay yiraahdaan cimrigaagu raaga geel dhalaaya ay ku tusaa adiguse wali ma aragtay geel baasta cunay fargeeto qaado midi ma lagu cunaa mise gacan ma geel leh kaftan hamoodin itus itaabsi guud ahaan muuqaaladaasi ayaan kula wadaagi doonaa inta aan soo guda galin hadii ay satay booqashadaadii ugu horeysay waxay si xushmadi ku dhihantaday kaga codsana walaal inaad maanta nagu soo biirtaan channelkana subscribe inoo saartaan sidoo kale waxay si xushmadi ku dhihantaday kaga codsanaya qof walba oo muuqaalka daawanaya bal inuu laagta iyo sharti soo keen dartaan si guud ahaan muuqaalkeena u gaar bulshada Soomaaliyeed soo dhawaada saaxiibayaal halkan waxa kaaga muuqata waa gabar Soomaaliyeed ahna hooyo single mother haysata 7 caruur guurdoon muuqaalkan ay iska soo duubtay waliba ayadoo bilaa filter waxay albaabada soo garaacaysaa ragga guurdoonka oo aad adiga ka mid tahay waxay tiri marna yaan lay dhayalsan waxaan ahay baaba fartuun nasiibka wadata ninkii ehelaasa waa taajiraya oo xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya oo hogaamiyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaad ka faramarujinaysaa alaashan waxaad noqonaysaa taajir isnacay in ka badan 2048 commenti ayaa falcelinteeda noqotay inta aan bal guda galin falcelinta sida ahayd bal muuqaalkeeda afjiga loo maadeego ayar daawano soo dhawo wiilow soo dhawo gabadhan quruxda badan kulaadlooso bila filter kulaadlooso oo kushkushka garoob waaye single mother waaye 7 cunug haysataa hadii ku soo biiri karto 7daas cunug aabuu noqon karto anigana xabiibkeyga noqonaysa anina xabiibtidaada noqonayo wiilow gurigaana laga baahan yahay gurigan oday laan way aab laan way jacayl fara badan inaan siisida rabnaa aadan jacayl fara badan lagu siiyo wiilow jimco waaye aan jimcooyinkan way igafooyin munuur soo ii furi jimco laan ay u dhacday ayaantan dhagool noqday wiilow hadaa rabtid 7daas cunug 7 cunug aan soo tarbiyay waan faantay ilmaha la fiirnayna ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadis ku rusuqo taajir noqotida laga yaabaa madaxweynaha wadanka sanadkan hadda madaxweynaha hadda soo socdina aad noqotida laga yaabaa ilmahaas inay ku duceeyaan wiilo walaasha single mother iga soo gaar video daartin wiilish single mother ayaa caliso markaan oo kale waxa igu soo dhacda maahmaahdi ahayd walaalka kuma gabi afkaagu isu gabi gabadhan waxay albaab ku soo garaacday guud ahaan ragga guurdoonka ee baadi goobaya gabar ay guursadaan waliba nolosha la wadaagaan waxay tiri waa lagu soo dhaweyn doonaa waliba halkan waxaad ka heli doontaa jacayl iyo kalgacayl laakiin in ka badan 2048 qof oo dhalinyaro ayaa ka soo falcelisay sheekadu sidii fiilaysay iyo waxay la kulantay waa kaaf iyo kala dheeri community aflagaadada meel ka dhaca karaamo xumada sharaf xumada ee gabadhan ay qalbiga kaga jibinayaan ayaa saciida ka badan qaar kamida halkan ay kaaga muuqdaan bal fiiriye hadalka wanaagsan waa sadaqo gabadhan si qalbiyan ay muuqaalka isaga soo duubtay ayada oo baadi goobaysa
nin nolosha la qaybsada farxad geliya garab istaaga carruurtan la koriya haddii aadan awoodin iska aamusa iska tag laakiin erey walbo oo sharafkeeda iyo karaamadeeda aad meel kaga dhacday iyo taa cidda kaa cafin karta haddaysan ayda kaa cafinin erayo qalbi jab leh waa gabar dhalinyaro ah carruurta ilaahay ugu deeqay kii dhalaa maysan sheegin inuu dhintay inuu nool yahay inkastoo ay leedahay jimcihii waan waaye oo dhagool ayaanba noqon rabaa haddana waxaa halkaa iga muuqata ninka inuu yahay weli nin nool kadibna waxay iska soo duubtay muuqaal ee ilmada ka qubanaysa ayadoo hanjab niyad jab kalsooni darro ay ka qaaday kana shalaynayso muuqaalkii ay ku codsanaysay inay tahay guurdoon naf ayay leedahay waa gabar yar weli noloshu cusub haddana 7 carruur ah dartood ayaa gabadhii looga tagay laguna diiday bal muuqaalka sida dareen kale ee u soo duubtay quusta in nolosha kaga taagan tahay bal af jooga looma adeego iyo waxaan soo dhigay oo calaftoona ay 7 carruur haystaan oo dhahay fiidii waa soo dhigay bacdeen 7 cunug haysta anaka maxaa kama wax siinuna qaxooti ma UAD maana nin kasta soo isoo dhahay horta waxa ciil waxa bagse magaalada Muqdisho saa ugu weyn ama nin jilaa ama nin jireere inaan ka waayo ninkas markaan ilmaha saliigu soo furi ilmaha abood isku si ana aad kaliga ku raba nin kasta idhaa Muqdisho ninka waayay magaalada saa ugu weyn hal nin jireere misal nin jilaa ma ka waayay ana saana qurux badanahay ma fool xumahay ani ciilka aduuga ay maanta واسكو وايدين كنا في سامع عزمين صاحبتي وايدين كنا في سامع مسهلني نجرر مسهلني نجلع أما مقدش كواني أرني نقول صوت واز horaase loo yiri hadal aana fiirs loo oran ama aana fiirs loo cabin labadaba fiiraha ay waxyeelayaan qof walba oo gabadhan u gafaysay dambi weyn ayuu ka galay hankeedii iyo hamigeedii iyo nolosha cusub ee baadi goobaysana ceel mugdi ah aysa ku rideen adiguse dadka fal celintooda aflagaadada gafka meel ka dhaca gabadha Soomaaliyeed u soo qoray maxaad kula talineed gabadhan Soomaaliyeed ee guurdoonka ah ee baadi goobaysa gayaankeeda maxaad kula talineed bal aragtidiina qaybta hoose ee commentiga muuqaalka xiga sheeko cabsi leh ayaa waxay ka soo korortay qabuuraha Langata ee magaalada Nairobi habeenkii markii la gaaro waxa soo baxayo dad aan la garanayn kuwaas oo qodaya qabuurihii meedkiina ka soo saaraya karfantii ay ka fureen geedaha dushiisa ay kaaga muuqataa halka meelaha qaar laga helay madaxyo qalfoof ah haddaba qabuuraha sida gaarka loo bartilmaameedsanayo ma kuwa cusub oo goor la aasay mise waa kuwii sanado badan aasnaa adiguse halkan dad ma kaaga aasan yihiin goorma kugu dambeysay oo soo booqato mid kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed ayaa muuqaalkan la wadaagayso waliba qaraacan kale halka geedka dushiisa ay saaran tahay karfantii oo waliba aad u tiro badan bal af jooga looma adeegay muuqaalka dhameystiran ayru daawan maanta waxaa joognaa Langata qabuuraha Soomaalida ee Nairobi joogta halkaana lagu aasaa intii dhimata Allah u naxariisto dhamaanteen halkaana wada sugayso Soomaaliyeey mid kale waxaan la yaabo xeetaa wax laga sheegi jiray meeshan ana beena u maleyn jiray waxa la dadka meeshan waa la soo bixiyaa fiir geedkan kurkiisa waxa saaran waxaas karfan day karfantii fuul waa waliba day habeenkii laga qarabtaa hal dhaa meeshan aan wax badan maqlay marka waxa Ilaahay ma nagu dilo war Soomaaliyeey xataa waxaan ku dhahay meedkeen waa laga daba tagayaa wallahi billahi dhibaato meeshan ka jirto waxaa maqlay waana arka maanta waa waxaya waata ila arka bal adinkana ila fiiriya intaas oo ummad meesha joogto waa wada aragta hadda waa aragnay ma faanta meelaha shishe gadaal hada fiirisid madaxay waxa ku arkaysaa lagu lahaa karfano wallahi taas wax cajiib ah ila noqotabo naga dhan waa taas fiiri karfan zuma soo dhaha waa soo dhaweynaa waad karfanta maarta geedka saaranta karfan dheer waay maarta xataa go'o ma ah waa cusubta
haddaba muuqaalkan waxaa ka falceliyay dad aad u tiro badan. Gabadhan ayaa ka mid ah dadka muuqaalkan ka falceliyay, waliba fariintan ku soo qortay qaybta commentiga. waxay tiri aabahay ayaa halkan ku aasnaa, waxaana la daris eed oo halkan kula aasneed gabar la yiraahdo Caaisha, haddana waa laga saaray oo hadda waxaa ku aasan waa nin. inkastoo aysan jirin warar rasmi ah oo looga hadlayo jaraa'idada dalka iyo telefishinada dalka, dad soo baxay habeenkii ee qabuuraha faaganaya. adiguse dhacdooyinka noocan oo kale ah wali ma la kulantay? bal aragtidaada qaybta hoose ee commentiga. muuqaalka xiga markaan oo kale reer xamarku waxay yiraahdaan cimrigaagu raagaa geel dhalaayana wuu ku tusaa. walise ma la kulantay geel baasta cunaya? fargeeto muu ku cunaa, qaada muu ku cunaa, gacan muu ku cunaa? adiguse kaftan ayaa laga yaabaa inay kula tahay, laakiin muuqaalka xaqiiqadiisa waa ka kuu muuqda. sida kuu muuqata geelii waxaa la siinayaa waa baasto. sababtu samays weydiis waa abaarta daba dheeraatay ee dadkeena iyo dalkeena iyo xoolaheenaba haysata. ilaahay roob lagu barwaaqoobo lagu baraaro ilaahay haynoo keeno. dalkeenana colaadaha ilaahay ha naga dulqaado, qalbiyadeennana burcad Allah isku mariyo. dalkeena iyo dadkeena nabadana ilaahay dib haynoo tuso. halka ayaa ku saafeeyay guudaan muuqaaladeeda ku talagala maanta. si aad muuqaaladeena update-ka alaaba aad ula kulanta kaliya nagu soo biir maanta channelka Rukumo, subscribe saar, sidoo kale muuqaalka inoo qurxin noo la gareeno share gareey si guudaan muuqaalka inoo gaar bulshada Soomaaliyeed. muuqaalkan mid lamid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.